بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتي بداوضيال meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa xarunta telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana soo gaaray amintii aanu hawada idin soo marin jirnay war wixii naga soo gaaray gudaha dalka iyo daafaha kale adduunkaba oo habeenkana caawa idinku diyaariyay inuu idin soo tabiyo anigoo ah Khalid Xasan Kharash qodobada aad warkayga ku maqli doontaan waxa kamida mas'uuliyiinka kala tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo warbaahinta dalka ayaa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa kadib markii ay shalay galinkii dambe shil baabuur ku galeen wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. Chief Aqal kamid noqon doona cuqaasha dalka ayaa lagu caleema saaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay guddiga cadaaladda wadankaas oo la soo magacaabay. dadweynaha wadanka Burundi ayaa saaka u dareeray doorashada codbixinta madaxtinimo ee dalkaasi. ciidamada Yuhuudda ayaa qabsaday doonyo gargaar u sida marinka Gaza. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada warkeena ugu door karo lahaatana ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. mas'uuliyiinka kala tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo warbaahinta dalka ayaa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa kadib markii ay shalay galinkii dambe shil baabuur ku galeen wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. sidoo faahfaahinta warkaasi inoogu hayo wariyeena Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed fantastic. الله نحرسته وحماته حوالها ناسه بلاد بريغا مغالده هرگيسا اسقرن لوغو سميه إلهي نحرسته جنها كورابيه اقاسمي واحدة قرشينته وسارد مالية سوماليلاند ولي داود عقال يا محمد داود يوسف وكميدها صور قاضياشة تلفزيونka هون كيبل يا عسكري كترسن إلى وزير كمالية سوماليلاند كواسو عصر لي قيمانتي شالي تولشيل بابور كو غلا ودada isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa waxaana askaasi qaran loo sameeyay saddexdaasi marxuun ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland madaxda xisabta siyaasadda salaadiin iyo culimaaddin iyo dad kale aad u tiro badan kuwaas oo dhamaantood ba Ilaahay uga bariyay saddexdaasi marxuun inuu janno firdawsa uu ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland ay ka baxeen uu samiriyay iimaan uu ka siiyo waxay naga baxay howlwadeeno qaran oo firfircoon runtii oo wasaaradda maaliyadda ka tirsanaa oo horeeyo weli daawud cigaal runtii muddo dheer ka soo shaqeynay qarankan soo shaqeynay wasaaradda maaliyadda laf dhabar ahaa waxaan markii hore ka taxsiinay dhammaan shacabka reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan qaraabadii ehelku ka baxay Ilaahay dhamaantood samir iimaan ka siiyo isaga iyo saaxiibadiisa la geeriyoodana naxariis janno Ilaahay ku waraabsho dhammaan shacabka reer Soomaaliland iyo marxuumintii dhintay waxaan ka tacsiideynaa ehelkoodii iyo qaraabadoodii iyo hay'adihii institutionkii qaranka ay ka baxeen wasaaradda maaliyadda ciidanka booliska iyo home cable ama warfaafinta si guudba qof waariya ma jiro nabi maxamed oo waar la alayhi wasalaam hada lagu waariyo marka hore waxaan leeyahay samir iimaan qoyska ka siiyo qoysaska ka dhinteen iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada ka waraabiyo firdawsa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut Ilaahay waxaan u weydiinaynaa dhammaan marxuuminta inuu naxariista janno ka wada waraabiyo ehelkii qaraabadiina inuu Ilaahay samiriyo ka wada siiyo niya asxaabtii iyo dhamaanteenba waa geerin naxdin leh maalin Rabadaana 12 ay tahay Rabadaan waan ka tacsiideynaa ehelkii qaraabadii ay ka baxeen saddexda marxuun sida doctortiin waxay nagu dhacday runtii maqaadiir runtii aad u xun Ilaahay wax ka bariyaa saddexda nabi inuu jannatul firdaws geeyo askari ka tirsan ciidanka biliska ahaa ilaaliyihii wasiirka waxaan tacsiid gaarsiinayaa home cable TV taliyaha ciidanka biliska iyo dhammaan ciidanka biliska waan ka tacsiinayaa askariga iyo wasaaradda maaliyadda jidkan Berberiya Hargeysa dhaxeeya waliba dhinacan haleeya inta badanna jidka waxa ka dhacay maxay ahaydey shilal aad u fara badan baa ka dhacay baabuurta marka hore waxaan tacsiid jeedinayaa qoyskii qaraabadii ay ka geeriyoodeen saddexda marxuum waxa kale oo aan tacsiid u dirayaa saddexda
meelooda ay ka soo kala jeedeen ciidanka qaranka Soomaaliland wasaaradda maaliyadda iyo bahda saxaafadda gaar ahaan telefishinka caalamiga ah ee Cable TV dawladdu waxaan ugu baaqayaa in booyadahan wax laga qabto booyadahan afka inta bahal af dheer inta la inta dhigaan dadka un jiiraya waxa laga qabtaa waan leenahay oo bahala afka laga jaro runtii wadadaas waxa weeyaan nimcooyinka aynu helay kamida bay ayay tahay waayo waa wada imika si wanaagsan loo sameeyay hase yeeshee waxaad moodaa in shilalkeedu ay aad imika u badan yihiin waxaana muuqata dadka wadada isticmaala khaas ahaan kuwa booyadaha wata iyo kuwa wata iska rogooyinku inay yihiin dad qeyr mas'uul ah arrintaas oo runtii aan canaanteeda dusha ka saarayo ciidamada wadooyinka oo aan u arko iyaga laftoodu inay aad u tamar daran yihiin waxaan halkan jeclaan ka soo jeediyo baabuurtaasu gardarrada iyo foolxumada ay sameeyaan waxaa ka sii daran xagga horena waxay ku xidheen bir weyn oo sidii cagaftii ay dadka ku jiiraan xagga dambena midaan looga soo dhawaanin marka halkan maanta waxaan ka farayaa ciidamada wadooyinka si degdeg ah wixii bari laga bilaabo inay labada dhinacba ka jaraan muxuu ahaayay turusyada labada turusba meelarku way fiican way muujinayaan laakiin labada turusba baabuur aan muxuu ahaayay turusyada inaanu wadanka iyo magaalada ka shaqo wadooyinka aan marin amarka waxaan siinayaa maanta haddii la yiraahdo baritan waa la bilaabi doonaa inta aan booliisku xareynina inuu nin walba geerashka iyo labadaba ka jaro ayaan amar ku bixinaynaa ninkii lagu arko shaqaynaya wixii berita ka bilowda haddii la yiraahdo baabuurka waa laga dhigi doonaa waxaa la saari doonaa ganaax weyn halkan fariin adag uga dirayaa anigoo dhowr jeer hore media ka sheegay dhammaan gaadiidleyda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee had iyo goor xeerka khilaafsan u socota waxaan si gaar ah digniin ugu sii dirayaa iska rogooyinka iyo booyadaha iyo basaska carruurta iskuulada qaada waxaan idin sheegayaa anoo horena dhowr goor digniin bixiyay qadarku waa halkiisa laakiin cidda uu hogaansamo weyda in ciidanka booliisku gacan adagoo sharciga waafaqsan ku qaban doono waxaan halkan taxasuus uga diranaa mas'uuliyiinta maanta halkan lagu aasay maanta meetida ee shalayna noola waxaanu ilaahay rabbiga raxmaanka weydiinaa bil barakaysan oo khayr leh in ilaahay naxariis janno ka waraabiyo halkan waxaan taxasiid tiraan yeelay uga dirayaa eheladii qaraabadii iyo qoyskii iyo waliba bahda saxaafadda ee uu ka baxay walaalkay saaxiibkay Maxamed Daawud Yuusuf Maxamed waxa uu ahaa qof wanaagsan geeridu waa xaq marka waxay muujinaysaa untani inaynu ammaano sidno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jiif caaqil ka mid noqon doona cuqaasha dalka ayaa lagu caleema saaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sidoo faafaynta warkaasi inoogu haya wariyeena Cadnaan Siciid Cige waxaa habeennimadkii xalayto ahayd munaasabad ballaaran oo si horsaraa loo soo agaasimay isla markaasina lahayd maamuuskeeda iyo ammaanteedu ay ka qabsatay Hotel City Palace ee magaalada Burco isla markaasina lagu caleema saarayay Chief Caaqil Barkhad Cabdi Shaybi iyadoo munaasabadaasi ka soo qayb galeen xubno ka mid ah golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland xubno ka mid ah salaadinta cuqaasha waxgaradka waayeelka iyo waliba aqoon-yahanka iyo waliba ganacsatada guud ahaanba gobolka Togdheer iyo waliba Somaliland iyadoo munaasabadaasi sidoo kalena ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo waliba duqa degmada Berbera Cabdishakuur Ciide ayaa waxa ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay caleemo saarka ee lagu caleemo saarayo Chief Caaqil Barkhad Cabdi Shaybi duqa degmada Burco iyo waliba barasabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri iyo duqa degmada magaalada Berbera iyaguna si wada jir ah u soo dhaweeyay caleemo saarka Chief Caaqil Barkhad Cabdi Shaybi isla markaasina ku tilmaamay hanankana xilkaasi sidoo kalena ugu duceeyay xilkaasi loo igmaday kale iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xubno ka mid ah xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna si wada jir ah u soo dhaweeyay Chief Caaqil Barkhad Cabdi Shaybi tilmaamay mid isagu hanan kara xilkaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan ugu horeyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaya Chief Caaqilka Barkhad Ibrahim Shaybi in Ilaahay ku xilka ku asturo ku gargaaro ku garab galo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku asturo waxa farxad weyn ah runtii inaan ka soo qayb galo على مسارك شيف عاقل برخد
cabdi shaybe oo aanu anagu saaxiib nahay dhanka kale iyaguna waxaa jiif caaqilkaasi kusoo dhaweeyay madasha dhaqanka caaqil barkhad cabdi shaybi qaar ka mid ah solaadiinta cuqaasha waxgaradka waayeelka iyo weliba madasha dhaqanka jamhuuriyadda Somaliland ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi isagu ka hadlay caleemo saarka ay jiif caaqil barkhad cabdi shaybi isla markaasina ballan qaaday inuu sameyn doono cadaalad sinaan iyo weliba dulqaad waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ballan qaadaya inaan ka shaqeeyo wanaagga nabadgelyada wax kastoo soo dhaweynaya nabadgelyada iyo wanaagga ayaan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ummadii dooratay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku dooranay ha igaga hadhin ee ila shaqeeya waxaan aad iyo aad dhammaantiinba aan ugu mahad celinayaa ka soo qaybgalka xafladda caleemasaarka si kastaba ha ahaatee munaasabadani caleemasaarka ee lagu caleemasaarayay jiif caaqil barkhad cabdi shaybi ayaa iyadoo ahayd munaasabadan abid hore loogu araga guud ahaanba gobolkani Togdheer iyo weliba deegaanada hoos yimaada Somaliland iyadoo munaasabadaasi ay ka qabsatay gudaha magaalada Burco isla markaasina ay soo buux dhaafiyeen madashaasi kumanaan ka mid ah dadweynaha iyo weliba salaadinta cuqaasha madaxda waayeelka iyo waxgarad sita magacyada kala duwan وعدنان سعيد عدنان ميامي تلفزيونka madaxa bannaan ee Bulsha TV gudaha magaalada Burco wasiirka cadaaladda Soomaaliya oo ka hadlay gudida cadaaladda wadankaasi oo dhawaan la magacaabay sida warbixinta warkaasi inoogu ay wariyeen Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya kulankiisa 15aad waxa ay maanta su'aalo ku weydiinayeen wasiirka cadaaladda iyadoo su'aalo laga weydiiyay guddiga madaxa bannaan ee adeega garsoorka kulanka oo soo xaadireen 148 xildhibaan ayaa markiiba la guda galay in la weydiiyo su'aalo wasiirka cadaaladda شرعي لدود بسوم وقضبك عود قضبك وقولي سلام قولها أديك كسور كو وحالي مدام مسقال يحكمه شرعي لابد السيد قد أديك كسور كبرلمان وصحيح أنا قد بني madaxweynaha koow arkiifyada kamaana helin faafintii rasmiga ahayd uu kusoo baxay iyo sharciga namarkiisa maanan arag arkiifyada waa tagay saxiixii iyo hawshiina maana arag haddii la keenan aada u mahadsantihiin qodobka 7 ee sharciga mudane wasiir qodobka 7 ee sharciga wuxuu leeyahay لكن إما إلى أنا لو سوتشكاجي 4.5 معروف فيها 4.5 نزيد كل حاجة سوق يستاهل وعنده هبل مرة وعليه وضعه وعنده خيرية dhanka kale wasiirka cadaaladda Ilkajiir ayaa isku dayay inuu qaar ka mid ah ka jawaabo su'aalaha ay weydiiyeen qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka beer noqdeen labo xubnood oo ka mid dabadeedna la yidhi hadal bedelo sidaasaa markaa maaha axmed cabdillah xasan lagu bedelay maaha farax lagu bedelay oo axmed cabdillah xasan uu ku yimi meesha arrinta labaad waxaa qodobka fariislaanaad oo guddiga guriga 9 xubnood waa la sheegay waa ku cadday dastuurka دي أدرك BBC يقول لي أسير قدر كافرك
sheegayaa meelo badan ku tilmaamaya qaabka uu ku imanayo maxkamadda dastuurka qaabkay ku imanayso baa iyadana ku jirta meesha oo ah inuu golaha kan awoodda siinayo xeer inuu golaha kan ku magacaabo oo diisoo gudbiyo marka sida 9 xubnood ay sidaa ku noqdeen. ugu dambeyn waxaa kalfadhiga soo xidhay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu su'aalo weydiinayay qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda Soomaaliya iyadoo kalfadhigii ugu dambeeyay su'aalo lagu weydiiyay wasiirka maaliyadda Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Bulsha TV magaalada Muqdisho. dadweynaha wadanka Burundi ayaa saaka u dareeray doorashada codbixinta madaxtinimo ee dalkaasi. dadweynaha kala duwan ee ku nool wadanka Burundi ayaa saaka u dareeray doorashada baarlamaanka dalkaasi. inkastoo uu dalkaasi qalalaase ku jiray muddo bilooyin ah, bulshada caalamkuna ay ku baaqeen in dib loo dhigo codbixintani. xaaladda dalka Burundi ayaa aad u kacsan iyadoo la filayo inay dadku codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka baarlamaanka oo aatii ugu horeysay codbixin oo muran ka taagan yahay. wadanka ayaa qas ku jiray tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad isu soo taagi doono doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. mucaaradkuna waxay sheegeen inay taasi ku xadgudbayso heshiiskii muhiimka ahaa ee nabadda. tiradada ayaa ku dhintay banaanbaxyo ka dhan ah isku dayga madaxweynaha bishii horena koox askar ayaa inqilaab isku dayay. qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa ku baaqay in codbixinta dib loo dhigo, laakiinse xukuumadda dalkaasi waxay ku adkaysanaysaa inay xaaladdu ay degan tahay oo ay saamaxayso in doorasho la qabto. magaalada caasimadda ee Bujumbura ayaa dad badan deganaansho la'aantu waxay ka hor istaagtay inay isdiiwaangeliyaan, waxayna dareensan yihiin in natiijada doorashada imikaba la sii og yahay. in ka badan 120,000 oo qof ayaa waxay ka qaxeen dalkaasi tan iyo bishii Abriil. dhinaca kalena warar kale aanu ka helayna wadankaasi ayaa waxay sheegayaan in tiradada ay ku dhinteen codbixinta doorashada wadankaasi. xaaladda wadanka Burundi ayaa haatan ah mid aad u kacsan iyadoo aan la garanay halka ay ku dambeyn doonto xaaladdan siyaasadeed ee ka aloosan wadankaasi Burundi. ciidamada Yuhuudda ayaa qabsaday doonyo gargaar u sida marinka Gaza. ciidamada ilaalada badda ee maamulka Yuhuudda Israa'iil ayaa xoog ku koray doon u socotay magaalada Gaza ee xanibaadu saaran tahay. doontan ay wateen dadka u ololeeya Falastiiniyiinta ee ka kala yimid 17 wadan oo u badan Yurub. ciidamada Israa'iil ayaa mid ka mid ah saddexda doonyood ee u socday Gaza xoog ku fuulay iyagoo u jeeyay dhanka dekedda ay maamulaan Israa'iil ee loo yaqaan Ashdod. laba doonyood oo kale ayaa iyagu dib uga noqday biyaha caalamiga kadib markii ay u hanjabeen ciidamada Israa'iil. maraakiibtan ayaa gargaar daawo iyo weliba qalab kale oo bini'aadanimo u siday shacabka ku dhaqan magaalada oo ay saaran tahay xanibaad dhinac walba oo berri iyo badbale. qaar badan oo ka mid ah dadka soo abaabulay gargaarkan oo ka soo jeeda dalalka Sweden oo saarna ay doontan ay xooga ku qabsadeen ciidamada Israa'iil ayaa cambaareeyay falalka wuhuuddu sii wado iyo cadaadiska ay ku hayso shacabka ku nool Gaza. waxay ku eedeeyeen Israa'iiliyiinta inay u dhaqmayso sidii burcadbadeed oo kale. sanadkii 2010 ayay Israa'iil sidan oo kale weerar ku qaaday maraakiib gargaar u siiday Gaza, xilligaas oo ay weerarkaasi ku dileen 9 muwaadiniin u dhashay dalka Turkiga. xoogaga Taliban ayaa la sheegay in askar ka tirsan wadanka Pakistan ay ku dileen wadankaasi. xoogaga Taliban ayaa la sheegay in askar ka tirsan dawladda Pakistan ku laayeen wadankaasi. xoogaga Taliban ee dalka Afghanistan ayaa dilay in ka badan 12 ka mid ah ciidamada dawladda ee ku sugan galbeedka gobolka Herat ee dalkaasi. afhayeen u hadlayay barasaabka gobolkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in askarta la weeraray xilli ay habeennimadii xaddi u safrayeen gobolka Bashtis. Taliban ayaan weli wax jawaab ah ka bixin weerarkaasi. ururka kacdoonka wada ayaa balaadhiyay weerarada uu ku hayo ciidamada Afghanistan tan iyo markii ciidamadu si bilaabeen duulaan ka dhana Taliban dabayaqadii bishii Abriil ee sanadkii hore.
ciidamada afghanistan ayaa la dagaalamay taalibaan xilli aanay garab ka helinin ciidamada nato oo howlgalkooda dalkaasi soo afjaray xilli laga joogo 6 bilood ka hor midowga afrika ayaa diiday inay kormeerayaal u diraan doorashada codbixinta ee wadanka Burundi midowga Afrika ayaa sheegay inuusan wax kormeerayaal ah u diri doonin doorashada dalka Burundi maanta oo Isniin ayay dalka Burundi ka dhacaysaa doorashada baarlamaanka waxaana la finayaa in doorashada madaxweynaha ay ka dhacdo 15 bisha July maanta oo Isniin ayay dalka Burundi ka dhacaysaa doorashada baarlamaanka waxaana la filayay in doorashada madaxweynaha ay dhacdo 15 bisha July hore ayay midowga Yurub iyo beesha caalamku u sheegeen inaysan ka qayb qaadan doonin kormeerka doorashada Burundi oo ay ku dhaliileen xukuumadda inay cadaadis xoog leh ku hayso mucaaradka iyo shacabka dalkaasi Burundi ayaa bilihii la soo dhaafay ay ka taagnaayeen xiisado la xidhiidha madaxweynaha dalkaasi oo markii saddexaad isi soo taagaya xilkaasi iyadoo dastuurku ogol yahay 2 jeer oo kaliya midowga Afrika iyo dalalka bariga Afrika ee jaarka la Burundi ayaa horey uga baaqay in dawladda Burundi ay dib u dhigto doorashada dhacaysa wuxuuna midowga Afrika sheegay in doorashada ka dhacaysa Burundi aysan buuxin shuruudihii laga rabay xisbiyada mucaaradka ayaa sheegaya inaysan ka qayb geli doonin doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynahaba guud ahaan badawadayaal waxay taasi inoogu eeg warkeena caawa ee telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV oo habeenkani caawa uu idin soo tabinaya anigoo Khalid Xasan Kharash aniga iyo akhyaartayga la qayb qaadatay telefishinka Bulsho waxaan iskaga tageynaa sida ayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh